إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعبد الرشيد علي شيخ محمد وي waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo al-imaam al-calaama sheekh saalax fawsaan iyo tv-ga khadyaaniyiinta doctor yaxya abu zakariya nin la yiraahdo uu la wareego oo carab ah oo uu shanta qaarad rabo inuu faafiyo qadyaaniyiintii oran jiray, macnaha dadkuna u yaqaaneen waxaana la dhahaa quraaniyiin, oo nebi ka soo baxay say sheeganayaan hindiya inay ayagu raacsan yihiin, oo la dhaho qadyaani axmed qadyaani qarnigii 18aad 1800. dhowr jeeroo hore baan marka qadyaaniyiinta iyo quraaniyiinta macnaha idiin sharaxay. hadda marka caawa ma gelayno macnaha sharaxaadooda iyo waxay waad garanaysaan. ugu yaraan 2 jeeroo horena waa idiin sheegay. caawa waxaan ka hadlaynaa ninkaas tv-ga uu la wareego oo adduunka uu kula wareegayo sidii looga hortegi lahaa oo muslimiintu uga hortegi lahaayeen. mowduucu marka wuxuu ku saabsan yahay ninkaas iyo tv-giisa iyo dagaalka uu ku hayo diinta islaamka. qaala tacaala: wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. nimankan dagaalkay ku hayeen diinta islaamka inay baahiyaan bay rabaan oo caalamka o dhan ku baahiyaan. rabbi bay beeniyeen, rasuulkiisii bay beeniyeen, qur-aankii bay beeniyeen, sunnadii nebigay beeniyeen. khulafaa raashidiinta abubakar laga bilaabo cumar iyo cuthmaan iyo cali ayay wararkoodii o dhan mataqaanaa ay beeninahayaan. saxaabadii dhan bay beeninahayaan iyo wixii ay mataqaan soo gudbiyeen oo diintan mataqaana ay ka soo naqliyeen. 300 sano saxaabiyiin, 100 sano saxaabada iyo nebiga iyo saxaabada sallallahu alayhi wasallam iyo 100 sano taabiciinta ku xigay iyo 100 kasii dambeeyey oo atbaacu taabiciinta. 300 oo nebigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri, nebigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri waa 300 sano oo ugu fiican. khayrun naasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum buu yiri nebigu sallallahu alayhi wasallam. dadka qarniyadooda waxaa ugu fiican, ama sanadaha dadku nool yihiin waxaa ugu fiican 100 sano anigu noolahay, waxaa ku xiga 100 sano ku xiga, waxaa ku xiga 100 sano ku sii xiga. 300 waxa la waxay sheegeen oo diin islaamka sheegay dhan waa beeninayaan nimankan khadyaaniinta la yiraahdo.
waa kasoo gudbeen afartii imaam abu xaniifa, imaam malik, imaam shaafici, imaam axmed ibnu xambal, afartana waa ka dabageeyeen, ma ogola, way beeninahayeen warkoodoo dhan. waa kasoo tageen sheikhu islaam ibnu taymiya ayay u yimaadeen, waxay ku dhihi karaan bay ku dhaheen. waa kasoo tageen sheikhiisii ardaygiisii ayay isagana daba dhigeen. waxay ku xijiyeen sheekh maxamed cabdiwahaab oo ay ugu yeeraan asaga iyo ardadiisii wahaabiyiinta ugu yeeraan. intaa markay kasoo falxasheen waxay ku xijiyeen imaam alcalaama sheekh maxamed naasirudiin albani, waxay ku xijiyeen alimaam alcalaama sheekh binu baas, waxay ku xijiyeen alimaam alcalaama sheekh ibnu cuthaymiin. waxay hadda ku dhegan yihiin alimaam alcalaama sheekh saalax alfawsaan, oo hadda macnaha caalimka muslimiinta adduunka oo dhan markii mas'alo diin la dhaqaajin waayo oo la garan waayo loo geeyo oo xarameynka fadhiya ayay hadda dacaadeeyaan oo wax ka sheegaan, oo waxay leeyihiin waxa ma yaqaan, ma fadwoon karo, fadwadiisu taqaan waa fadwo oo fidno ah, waa wahaabi. halkaasay marayaan nimankan. waxa weeye marka ciwaanka aan siiyey waxa weeye sheekh fawsaan, sheekh saalax fawsaan, oo ay kasoo horjeedaan tv-ga khadyaaniyiinta iyo doctor yaxya abu zakariya. ninkaas doctor yaxya abu zakariya waa ninka barnaamijkan u xil saaran oo tv-ga la wareega shanta qaarad inuu faafiyo barnaamijkan khadyaaniyiinta, dadkuna u yaqaanaan quraniyiinta u yaqaanaan. wuxuu marka asaga u waraystaa niman uu ugu yeero barfasoro iyo ditoro oo mabdi'iisan la aaminsan khadyaaniyiinta. marka waxay u badan yihiin carab, laakiin ummado kalena waa ku jiraan oo suudaan ay ka mid tahay iyo ummado kale. wuxuu heli karaa ugu keensada oo mabda-an aaminsan. wadamada fadhigooda ugu badan yahay wuxuu waraysto waa tunuusiya, waa suuriya, waa masar, waa algeria, waa suudaan. meelahaas u badan asaga asxaabtiisii saaxiibiis barnaamijka la wada. masar oo kale wuxuu ka waraystaa jaamacaddan asar la dhaho ayuu waraystaa nimankan cimaamada qaata ee dhexda ka cad korna ka guudan oo dhaha waxaa nahay asar baan culummo u nahay buu waraystaa. nimankaasoo hadalkooda dhan uu ka muuqdo cadownimo ay u qabaan sheekh maxamed cabdiwahaab iyo ardadiisii oo ayagu u yaqaanaan wahaabiyiin, marna ugu yeeraan salafiyiin ugu yeeraan. marka dagaalkaas ayuu ugu yeertaa asagu, oo marka barnaamijkii waa kusoo biireen nimankaas. barnaamijkii qadyaaniyiinta qayb bay ka noqdeen, jaamacadda asar qayb bay ka noqotay. ayada qayb kaloo ay ku leedahay waddankan la dhaho magaciisa tunuusiya oo ay dhahaan zaytuun ama zaytuuna,
qaybtaasuna waa qaybta kale uu waraysto. qayb saddexaad asar waxay ku leedahay Algeria, qaybtaasna wuu waraystaa. marka asar iyo wixii mabaadideeda ku shaqeeyo dhan dagaalka way soo galeen oo hadda khadyaaniintii kusoo biireen oo qoladii quraniinta loo yaqaanay kusoo biireen. qolada kale oo ugu xoog badan waa shiico oo midka laftigiisu Dr. Yaxya Zakariya hadalkiisa markaan dhageystay muddo badan inuu shiici yahay 100% ama duruus ha ka sii ahaado ama calawiin ha ka sii ahaado ama jacfariya ha ka sii ahaado ama ismaaciiliya wuxuu rabaa ka sii ahaadee inuu yahay shiici inuu yahay baa 100% warkiisa ka muuqata. waxaa idinka ilaaway Iran ugu waraystaa. Iran wadankan Iran la dhaho ayadana ugu waraystaa oo shiicada joogtuu waraystaa kuwan ayaga culumadooda isku sheego oo duubabka waaweyn leh dhowrka qamiis iska dulqaatana wuu waraystaa. marka waxaan ka hadlaynaa caawa marka hal qodob weyn oo aayadda hadda aan idiin sheegay qaala tacaala fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. nimankan waxay sheegtaan ayaga waan idiin sheegay waxay aaminsan yihiin caqiidadooda waa idiin sheegay waa kulli khadyaaniyiin weeye waxayna u badan yihiin shiico way u badan yihiin xoogoodu 35 25 waa sunni oo jaamacadahaas Azhar iyo Zaytuna midaan ay leeyihiin oo ku taal Tunisia iyo midaan kale oo Algeria qaybta ugu taal magaceedu waa iska ilaawe saddexdaasuna qayb ka mid ah way oo marka sunni ah. wixii adduunka u joogay oo dhan oo ma taqaana khadyaaniyiin ahana ama dadku hadda quraaniin u yaqaanaan waa la socdaan way waraystaa. wuxuu marka hadda inta badan markuu qofka waraysanayo titleka uu siiyaa waxa weeye ama wuxuu dhahaa professor ama wuxuu dhahaa doctor ama wuxuu dhahaa imam ama wuxuu dhahaa sheekh waxaasuu dhahaa. marka waxaan ka hadlaynaa caawa nimankan diin waxba kama yaqaanaan. markaan ka gudubno ayaga mabaadida ay aaminsan yihiin oo ah qadyaaniyiinta iyo quraaniinta markaan ka gudubno wadamada ay joogaan aan ka gudubno waxaan u gudbaynaa titleka ay wataan oo meeshan ku soo geliyo oo professor ama doctor. professor iyo doctor waxay ku yihiin ama dhakhtarnimo ama maxaan ku raahdaa finance ama law ama maxaan ku raahdaa adigu science and arts bay ku yihiin. hadday marka saas tahay da'dooduna waxay u dhaxaysaa 50 sano ilaa 80 sano nimankan. haddaan xoogaa idinkaga magacaabo asagaan Dr. Yaxya Zakariya ah oday Tunisia jooga oo waayeela 80 sano meelaas aan ka yarayn la dhaho Yusuf Sadiq mid jooga maxaan ku raahdaa Masar oo asna la dhaho Ahmed Mahir oo asna aan 70 ka yarayn oo dhaha loo yar baanahay asaguna mid kaloo jooga Baytul Maqdis oo markuu hadlahayo oo hiya oo la yiraahdo Saalax abu Carafana waa loo yaqaan abu Carafa baa loo yaqaanaa Saalax bin Ibrahimna waa la dhahaa. mid kaloo jooga Austria wadankan Yurub oo Jarmalka ku dhow Austria waxaa la yiraahdaa Dr. dhakhtar weeye asaga sida uu sheegto waxaa la dhahaa Dr. Adnan Ibrahim waa kii uu sheegan jiray midkan Canada jooga oo qadyaaniyiinta iyo quraynta ka midka Soomaaliga oo la yiraahdo Cabdulqaadir Kishki ku oran jiray sheekhayga weeyo isagaan ma taqaana warkiisa dhan soo qaatay soo xigtaa ku dhihi jiray way kaasuna member buu ka yahay. markii aan hadda ka hadlay ilaa 3-4 ugu yaraan 3-4-5 jeer baan ka hadlaan u malay kooxdii Cali Raaga aan u bixiyay oo Cali Raaga iyo midkan ay ugu warbadnaayeen Cabdulqaadir Kishki oo Canada jooga. waxa weeye nimankan hadda aan caawa ka hadlaya waa nimankii kuwan ayaga waxna baray oo ay ku xiran yihiin oo madaxda u ah oo dhaqaalaha iyo fikirka labadaba ay ka qaataan way oo ayagu ay ardada u yihiin. marka ayaguna waxay rabaan Soomaali kale
inay recruitment ku sameeyaan oo barnaamijkan gaarsiiyaan ilaa Soomaaliya waa kii Cali Raagi Nairobi ka lahaa ilaa Soomaaliya u socda marka waxaan rabaa in laga hortago oo guri kasta oo Soomaali ah dal iyo dowladba nimankaas aysan Soomaaliya naga tagin intooda qurbaha joogtay intooda joogta meel kastana idaacada loo samaysto sidaan Yaxya Zakari idaacada u samaystay idaacada loo samaysto markii hal saac hadlaan 3 saac la hadlo markay 3 bari hadlaan 6 bari la hadlo markay 3 asbuuc hadlaan 3 bilood la hadlo markay 3 sano hadlaan 6 sano la hadlo si hadalkooda dadka loo qaadsiyo marka sababtu nimankaanu dhamaantood horta carab bay u badan yihiin ama boqolkiiba 90 waa carab hal kale inay helaan waa laga yaabaa waxa weeye marka dhul ahaan carab diris baan leenahay oo Yemen baan ku dhaganahay dadkanagana carabta aad bay ugu safraan Soomaalida ah in badan baa marka loo soo dhiibi karaa waxan oo kuwa hadda noo muuqdo qaylinayo oo Cali Raagi oo xukumo anu koox Cali Raagi oo magac daaray iyo Cabdulqaadir Kishkan kanada ka qaylinay wixii kale la mid ah qolo kale ma taqaana dhalinyaro kale waxaan ma taqaana sii barayaan kadib Soomaaliya imaanayaan ayagoo fara badan oo degmooyin iyo ma taqaan xaafado iyo bay sii yeelanayaan waa in marka xiidada loo siibaa intaysan macnaha heerkaas lagu gaarin nimankan marka sababka ugu weyn oo caaw uga hadlaya waxa weeye in adinka Soomaaliya idin dareensiyo nimankaanu kooxda Cali Raagi oo sanadkii hore oo la soo dhaafay aan wax badan ka hadlay meesha ay ku xiran yihiin oo shidaalka ay ka qaataan inay kuwan yihiin oo marka idaacadaha ka hadlayaan iyo marka ay wax qorahayaan nimankan ay fikirkiisa ka soo qaataan dhaqaalaha mashruuc waxaan waa mashruuc ma ahan wax qof iska wato ama hadda ana soo guriga qolkayga fadhiyo kale iska hadlayo kala ma waa network isku xiran oo caalami ah oo ilaa Hindiya 200 sano ka hor ka bilowday oo la rabo diinta islaamka in lagu burburiyo horay baan arintaas oo dhan xabad idinku kala dhigay waxa weey marka caaw waxaan ka hadlaynaa ayaga haday professor iyo doctor yihiin maxaa quraanka iyo diinta islaamka maxaa daba dhigay ileen garan maayaan ma way yaqaanaanba waxba kama yaqaanaan hadaad dhageysato oo luqadda carabiga aad macnaha fahmayso waxa weeye ma yaqaanaan diinta islaamka waxba ka garan maayaan waxa marka qofku waxaan professionkiisa ahayn oo asaga aan takhasuskiisa ahayn oo saaqoonin inuu ka hadlo ayaa ceeb ugu filan nimankan waxa weeye haday dhakhtarnimadooda ka hadlayaan iyo haday ka hadlayaan maadooyinka kale ay barteen ka hadlayaan waxa weeye waa wax lagala hadli karo way sababtu waxbay ka yaqaanaan ama si fiican bay u yaqaanaan laakiin diin islaam waxba ka garanay maxaa faraha u geliyay عقلي أهم أنت بمعنى دين بأنا كهل عقلي أهم كسو قاد هذا متكمل ودكتور عن كسو قادنا إنه مسكح هذا قلع أما ونها قلبه يجا وحي مركزته أي كهل عن عقلك إنه مهم يهي أو قرآن كعقل لو فهم كراء حديث النبي عقل لو فهم كراء عقل مهم يهي أو قفك وصل أبا هنيبا هدول لغة عربية يقانو inuu aqligiisa kaashada mahana u soo baahnay wax u tafsiira aayada quraanka ama xadiiska wax u tafsiira ama sunnabi u soo baahnay bay sheegaan marka aqliga laftiisa ka bilaabaynaa aqligay wadaan baan la aqliyeynaa ka soo qaad dhakhtar maskaxda qalaway ama wadnuhu qala waxaan soo qaadaynaa qof aan dhakhtarnimo waxba ka aqoon hal xabana ka aqoon waligiis ba xataa aan hal eray oo dhakhtarnimo waxba ka aqoon waxa laga sheekeynayaa marka maskax baa laga sheekeynayaa la qalayo ninkan dhakhtarka kama soo qaad Adnan Ibrahim midkan dhakhtarka sheegto oo jooga Austria asagan keenina meesha oo maskax qalayo qofna waan u keenina oo caafimaad waxba ka aqoonin waxa la sharaxaya oo asagu uu sharaxaya Dr. Adnan Ibrahim maskaxdii u qaliyo sharaxaya qofkan buu u sharaxaya qofkan wuu kala doodaya oo wuxuu rabaa inuu ka doodo maskaxda qofkan hadda muxuu ka doodaa maskaxda ma way yaqaan dhakhtar waliis ma muuqan nimankan saasi la mid yihiin waxay la mid yihiin Dr. Yaxya عليه دكتور متقنا عدنان إبراهيم oo maskax qof qalaya oo rabo in qofkii qalay inuu qof aan waxba ka qoon caafimaad ugu sharaxo asagiina uu la sharaxo oo marka ay wax isla fahmaan oo aqli isla fahmaan
caqliga see la iskula fahmaya ninkanu waa dhakhtar maskaxda qala 20 sano 30 sano 50 sano qalay ninkan caafimaad waxa kama yaqaan marka caqli la isla fahmaya xagee ka imaanaya ma imaanaya waa waxaan jirin weyn iyagu marka waxay la mid yihiin markay diin islaam ka hadlayaan oo sheekh mataqaana Salax Fawzan ay leeyihiin fadwadiisa waa qalad ama ma fadwoon karo waxay la mid yihiin qofkaas aan caafimaad waxba ka aqoon oo rabo inuu ka doodo oo dhakhtarkan madaxa qalaya inuu kala doodo ama kala sheekaysto waxba aqal isla fahmay sababtoo qofna wixii uu yaqaana oo taqassus qofna waxba kama yaqaan marka aqliga sheegayaan intaas aan ku soo gaabinayna gabigiisa inuu san socon karin ba aqligu waxa isla fahmi kara markii la keenay doctor ah asaguna sida Cadnaan Ibrahim oo kale oo maskaxda asaguna qali jiray kana maskaxdu qala labadii maskaxood oo ay qalayeen ama halkii maskaxo isugu tagayeen bay ka sheekaysanayaan inta qalinku saac u soconayo dhiig joojinta marka qofka lagu sameeyo marka la soo naaxinayo qalinku marka ma taqaan socdo qaabka hadii meesha ay arintu adkaata sida la yeelayo dhakhtarka saddexaad oo loo yeeranayo ee ka khibrad badan waa la isla fahmaya sababtoo waa niman maskaxda qali jiray oo laba dhakhtar weyn marka aqligoodu marka uu iswaafaqaya sababtoo cilmigiiba isla yaqaanaan laakiin dadaan isku cilmi ahayn maada cilmi ku saabsan hadii laga doodo oo qofna uu saaqonin aqli isla heli maayo sababtoo aqliga waxa ka horeeya meeshii cilmigiiba nina yaqaanina u ka maqan yahay marka ayagu markay la doodayaan culimada muslimiinta ama sheekh Fawzan la doonayaan sheekh Salax Fawzan la doonayaan saas waxay la mid yihiin qof maskax rabo inuu ka doodo aan waxna dhakhtarna waligiis waxba ka aqoonba marka waxa leenahay aqligiina iska haysta quraan aqli lagu fahmi karo sunan nabina lagu fahmi karo aqli sababtu waa waxyi weeye oo loo baahan yahay sida in loo raaco aqliyagu wuxuu shaqeynayaa inaad rabbi iyo quraankiisa sidoo nabigiisa ugu soo mataqaan arabkiisa ugu soo dajiyay inaad u raacdo aqliyagu markaas oo macna leeyahay laakiin marka aayadii quraanka ahayd sidii nabigu u tafsiray aad diido xadiiska saxiixa iyo xasanka nabigu oo mataqaan soo u sheegay aad diido saxaabigii soo wariyay aad diido aqliyagu marka mid jiran ma mid shaqeynayana ma marka horta aqligooda halkaas aan u gudubnay waxaan u gudbaynaa marka cilmiga qaala tacaala wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر قرآن كان وحان كوسو ديشنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس قرآن كإناد أعديس معنيهيسا إناد دادك أعديس oo marka sunnada nabiguna waa waxyi quraanka lagu sharaxaya hadaan sunnada nabi quraanka oo sunnada ku sharaxin quraanka lama fahmi karo luqad carabina lagu fahmi karo aqlina lagu fahmi karo لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون waxay mudan yihiin inay maskaxda imaan ka shaqeysiyaan oo gartaan quraanku inuu waxyi ilaahay yahay waxa lagu fahmi karaa macnihiisana iyo tafsiirkiisana waxa weeye waa mas'alada ah inaad sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo quraanka uu tafsiir nabigu inaad raacdo sidii saxaabadu u soo naqliyeen u soo guuriyeen inaad raacdo intaas kaliya wadaas bas lagu fahmi karaa nimankan marka waxaan u tagaynaa meesha ku soo gabadaan godka ay galaan baan ka daba galeynaa waxay ku soo daba gabadaan mas'alo la yiraahdo waxay sameeyaan صرف اللفظ عن ظاهره waxay leeyihiin
intay ka bedelaan waxay ka leexinayaan lafdigii aayadda qur-aanka iyo xadiiska saxiixa ama xasanka lafdigiisiibay waxay ka leexinayaan macnihii u ahaa siduu u ahaa macnihiisa lafdiga marka lafdi ahaan aayadda loo macneeyo ama xadiiska loo macneeyo saxiixa ama xasanka macnihiisiibay bedelayaan markay bedelaan waxay keenayaan macno kale oo xaggee ka keeneen caqligooda ka keeneen marka maxay kala jeedaan waxay kala jeedaan inay taxriifiyaan bay rabaan marka التحريف معنويا بيسمينيا وتحريفينيا معنيه bay sidii rasmiga ah ilaahay ku soo dejiyay oo nabigu u sheegay oo saxaabadu soo qaateen macna aan ahayn oo jeebkooda oo been oo soo lifteen bay sameynayaan maxay kala jeedaan markaas oo arinta ka wadaan taqyiir macna marka macnihii bay bedelayaan maxayna isku sheegayaan waxay leeyihiin waxaan sameynayno waa ta'wiil ayaguna maxay dhahayaan oo isku bixinayaan ahlu ta'wiil baana oo anagu inaan quraanka iyo xadiis ta'wiilino ayaan ahl u nahay waana beentood weyn culimadu marka waxay dhaheen culimadii ta'wiilkii saddex qodob ayay ku soo koobeen ta'wiilka macnihiisa waxa la dhahaa bay dhaheen saddex macno yeesha waxa weeye waa tafsiir macnaha koowaad macnaha labaadna waxa weeye waa caaqibati shay macnaha saddexaadna waxa weeye waa sarfu lafdi can daahirih saddexdaas u kala qaybeen culimadii ta'wiilka ay nimankaan macnaha ta'wiilka erayga macnihiisa ta'wiilka kan ugu horeeya oo ta'wiil macnaha ah tafsiir baan hadda marka idin siinaya saad u kala garataan qaala tacaala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية مركي سودك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كو حق الرمي أون إيمان كذا كلهم ظلمي مركي سودك عبد الله afarta cabaadilada nin ka midka ahaa oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri quraanka si uu soo degay qofkii raba ha akhriyo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu markuu aayadan soo degtay nabigu u yimid wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayo oo hadee dulmi hadii la yiri maalin kasta intaas oo dulmi baan galnaa wax iimaankiisu marka badbaadiyay ma jiraan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri alladina aamanu walam yalbisu iimaanahum bidhulmin dulmigu saad u fahamtay adiga Abdullah ibn Mas'ud ma ahana waxa weey dulmiga waxa laga wada qaala tacaala hadda waxaan joognay aayadan waxay ku jirtaa suuratu an'am waxaa tagnaa marka oo tagayna luqman suuratu luqman halkaas nabigu marka uu geeyay Abdullah ibn Mas'ud wuxuu ku yiri dulmigan macnihiisa waxa laga wada oo Ilaahay uu ka wada qaala tacaala yaa bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun cadiim markuu luqman wiilkiisa kula u waaniyay dulmiga lagu sheegay Abdullah ibn Mas'ud waa shirki Ilaahay shirk yeelin way haddii marka Abdullah ibn Mas'ud oo
carab ahaa oo luuqadda carabiga kuwan hadda doctor yaxye gruubkiisa ka badiyey iyo cali raage iyo ninkan la yidhaha cabdulqaadir kishki haddii uu garan waayey macnihii bidulmi oo dulankii uu qaatay wax kasta see ku garanayaa marka kuwaana waa iyagala caqlaan ku garanayna dictor baan ahay barofesornimo iyo dictornimo miyaa qur-aan lagu garan kara wax ilahay lagu garan kara ama sunno nebi lagu garan kara marka maxaan hadda sameynay ta'wiil baan sameynay oo aayaddii laftigeedii ahaa dulmiga dulmiyadii waa fara badan yihiin laakiin dulmigii nebigu sal slam muxuu sameeyey aayaddii dulmigu aayad kale ku tafsiray dulmiyadii kol dhan lagama wado dulmigan laga wada aladiina aamanuu walam yalbisu iimaanhum bidulmin waxaa laga wadaa ereygan shirkiga ereygan dulmi waxaa laga wadaa shirki aayaddii ka hadlaysana wuu keenay nebigu sal slam oo aayaddii luqmaan hadda aan idiin sheegayo marka maxaan sameynay aayadda lafdigeedii yaan ta'wiilinay oo maxaan ku tafsiirnay markaas waa tafsiir markaas waxaan ku tafsiirnay aayad kale marka ta'wiilka saasaa laga markuu tafsiir yahay saasaa yaa laga wadaa macnaha waa aayadda macnaheedii oo inta la qaado macno kale aayad kale lagugu macneeyo waa fahanteen baan umale waxaan tegaynaa qodobkii labaad oo wuxuu ahaa ta'wiil waxay noqotaa macnaheedu caaqibati shayga cirib dambeedkiisa wuxuu ku dhammaanaya isagaasaa marka wuxuu ku yimaadaa in warada في طلب فتأويله فعله وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه معنى أساق الله بقى أكلا بحا عاقبة الشيء عرب دمتك سلام أكلا بحا culimadu waxay yidhahen shayga hadduu dalab ku yimaado oo naskaas uu ku yimaado ama qur-aanka ama xadiiska hadduu ku yimaado hadduu dalab ku yimaado waa inuu ficil wataa marka ficilkiisa baa wuxuu yahay ta'wiilkiisu waa ficilkiisoo la sameeyo ayaa ta'wiil ah hadduu khabar ku yimaadana oo naskaas qur-aanka ama sunnadaas mataqaana xadiiska oo saxiixa ama xasanka oo nebiga ay ku timaado iyadoo khabar ay timaado khabariyo ku timaadana waxaa la rabaa ta'wiilkiisu fata'wiiluhu wuquucuhu waa inuu dhacaa marka ficilkii iyo dhicitaankii labaduba inta badan waa isku dhow yihiin oo mataqaan ma kala harayaan tusaale ahaan oo kale marka hadda waxaan idin siinahayaa aayad aad ku garataan ficilkii oo dhacay isagoo khabariye ah oo markaa dhacay haddana waxaa idin siinahayaa isagoo dalab ah markaas kan waxaan ku hormaraynaa oo khabariga qaala tacaala nebi yuusuf markii aabbihii iyo hooyadii iyo walaalihii u yimaadeen oo u sujuudeen aabbihiis hooyadiisa u sujuudeen muxuu yiri qaala haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qabl qad jacalaha rabbi xaqa nebi yuusuf saasuu yiri marka waxaa weeye qaala haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qabl marka ta'wiilkaasu muxuu yahay waa markaan yaraa riyadii aan ku riyooday iyadoo mataqaanaa la ii sujuudahayo
fasirkeedii iyo tafsiirkeedii waa kanaya hadduu dhacay oo wadinkan ii sujuudaya wey marka maxaa weeye wain warada fii khabar fata'wiiluhu wuquucuhu wey wuu dhacay markaan wakaa isagoo haddana marka waxaan tegaynaa oo ah in warada fii dalab fata'wiiluhu ficluhu tanna waa kana waxaan usoo qaadanaynaa xadiis nebi umuna caaisha waxay tiri radiallahu canha rasuulku sal allahu calayh wasalam markii ilaahay kusoo dejiyey suuraddan la yiraahdo idaa jaa nasrullahi walfatx wara-ayta naas markaas laga bilaabo wuxuu bilaabay rasuulku inuu rukuucda iyo sujuudda inuu ku yiraahdo subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika allahuma kfir li yata'awalu qur'aan macnaha waxa weeye qur'aanka ta'wiilkiisu waxa weeye waa yacmal bih inaad ku camal fasho oo seed ugu camal falaysa wuxuu ku farayana inaad raacdo qur-aanku wuxuu kaa reebayana inaad ka harto marka ilaahow ibar macnaha ilaahow igu hagaaji oo igu hanuuni qur-aanka inaan ku camal falo wey yaa dhahaya nebi maxamed baa ilahay iska barya waana markuu dhimashadiisiina waxba kama dhimana waxyar kadib uu dhimanaya nebigu sal slam oo marka erayadan ilaahay wuxuu farayaa intuu ka dhimanayo inuu erayadan ku celceliyo rukuuc sujuud ku akhriyo subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika allahuma kfir li yata'awal qur'aan ilaahu qur'aanka nebi maxamed dhahay ugu had ilaahu qur'aanka ibar ta'wiishiisa oo macnaheedu tahay inaan ku camal falo qur'aanka oo wuxuu ifarayana aan faro macnaha raaco wuxuu iga reebayana ka haro tanna maxay tahay waxaa weeye in warada fi dalab fata'wiiluhu ficluhu samana oran waa kana ficilkii nebiga oo ilaahay baryaya wey nebiyada iyo malaa'igtuna wax ilaahay ka baryaan way dhacayaan waa kii acraabigu nebigu u yimid oo yidhi abaarba eber naga dhitay waa baabanaya nebigu ma taqaana jimce mimbarka saaran ilaah noo bari oo markuu gacmaha taagayba roobkii bilowday markuu roobka ka dalbayo nebigu ilaahay gacmaha taagay iyo markuu imaanayo oo dalabka ilaahay aqbalayo iyo markuu marka oo ficilkii la imaanayo markuu dhacayo wuquucdiisa isku mar maaha waka waxaa weeye marka labadan hadda aan ka soo hadalnay oo tafsiirka ah ama midaan ah mataqaan caaqibada shayga caaqibadiisa iyo ma'aalkiisa nimankan labaas ayaga maaha meeshay ku dhumeen labaas maaha tan dambe ugu dambaysa wey oo maxay tahay sarfu dahri can sarfu lafdi can dahri sarfu lafdi can dahri lafdigii oo qur-aanka ahaa ama sunnada nebiga ahaa oo xadiis saxiixa xasanka ahaa ayay lafdigiibay macnihiisiibay taxriif ku samaynayaan way bedelayaan macno kalay saarayaan macnahaasna xaggee ka keeneen intaana geli meesha ka keeneen culammada labay u kala qaadeen tan laftigeeda sarfu lafdi can dahrihi ayay laba u kala qaadeen mid waxay yidhaahdeen waa maxmuud oo waa mid fiican midna waxay dhaheen waa madmuum oo waxaa weeye waa mid xun oo waa mid ka khaldan oo ayagu ay wataan kan maxmuudka waxa weeye waa marka hadda sida ayadaha aan ka soo hadalnay markuu qofku kuu keeno hadduu aayaddii iyo xadiiskii saxiixa ama xasanka ahaa lafdigii hadduu bedelay oo ta'wiil sameeyo macno kale ku sheegay macnahaas waa inuu noqdaa macno nebi maxamed ka sugnaaday oo saxaabadiina soo wariyeen hadduu kaas noqdo waa sax oo waxa weeye waa midka macnaha ah maxamuudkaa wey laakiin nimankan meeshay ku baabeen kan dambe wey hadduu macno tafsiir kuu keeni waaya saxa oo caqligiisa iyo hawadiisa kuu keeno marka waxaa weeye madmuumkii macnaheedu waxa weeye waa taxriif wey
waa eraygiyo oo macnihiisii la bedelo ama hadday rabaan inta badan ma sameeyaan laakiin hadday rabaan macna lafdiga xataa bedelaan laftigiisaba oo ama booska aayaddu ku jirto ay maxaan ku idhaahdaa ay booskeedii boos aan ahayn bay dhigayaan kasoo qaad hadda mid hadlayay aan dhegaysanayey oo ayaga kuwaan ka mid a hadda aan ka hadlahayo oo inuu Tunisia joogay ka hadlay u malaynaya oo doctor ah wuxuu yiri aayadan quraanka soo galay fiiri qaala tacaala ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم qaybtan ugu dambaysa walladina yu'duna rasuulallahi lahum cadaabun aliim ma loo hormariyo yiri aayad oo minhum alladina yu'duna rasuulallahi ma booskeeda taas ma gadaal la geeyo oo horay la keeno mid aan ugu dambaysa ilaahay wuxuu u sheegayaa aayadkiisa quraanka meesha dhiglaag u sheegaya nimanka dictatornimada iyo professornimada wakaas qadarkeedu intaas u leeyahay aayadda hadda idin sheegay waxay ku jirtaa suuratu tawba إنما الصدقات مقرضة كبلاوات إنما الصدقات مقرضة أيضا كبلاوات إنما الصدقات أيضا كحكتوي ومنهم الذين يؤذون النبي وإنما كان مركز ساسي لفظي القرآن كان أي سوق صيان أو ماشي إلى هيدك قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه سو إلهي مؤرد مركو يهود كهل وحوي آيات القرآن كهيد بوحور ربا إلهي إنه أشيوه qaybta ugu horeysa in gadaal la maray qaybta dib hor la maray markaas waxay ku leeyeen professorano doctorano quraan baan naqaanayo arab baan nahay af arab baan naqaanayo filosofaan nahay oo ma taqaana waxaan nahay mutakallimiin baan nahay niman ma taqaana qatarahan tabartiisuna intaas ay dhanta waxaweye marka nimankaanu meesha ay ku baaba'een oo dadkana ku dhumiyaan ku dhihi maayo waxbaan taxriifinayaa wuxuu kugu soo gabanaya arrintan hadda ay idii sharaxay oo aan ma taqaana tooshka idinkugu ifiyey halkaasay kusoo gabanayaan oo ah ta'wiilkiina culummadu say u sharaxeen waa idinkugu sharaxay saddexda qayb u kala qaybiyaan nimankan tafsiir kugu soo gaban maayaan caaqibati shayna kugu soo gaban maayaan waxay kugu soo gabanayaan sarfu lafdi can daahiri halkaasay kugu soo gabanayaan oo haddana qaybta maxmuudka ma ahana qaybta madmuunka oo ma taqaana taxriifka marka nimankanu inay diintii taxriifiyaan oo burburiyaan oo bedelaan oo diidaan oo inkiraan bay rabaan ujeedkooduna waxa weeye waa nimanka kale nebi kala nebi noo ah oo waxay aaminsan rusuladu ilaa qiyaamaha waba jirayaan oo waxay ku leeyihiin maxamed ummadan bay rasuul iyo nebi ummadan bayne waxay ku leeyihiin rusuladu way daba socdaan ilaa qiyaamaha way soconayaan oo hadda anaga mid hindiya ka soo baxay 1800 baa rasuul ma bay aaminsan yihiin markay joogaan ayaamo kalena mid kale ay calaamad saaranayaan oo nool bay mid Allah kana hadda rasuul ka dhiganay nimankan marka halkaas ay ku dhamaadaan annagana waxay naga haystaan kooxda Cali Raage iyo Cabdulqaadir Kishka baa u shaqeeya oo dhaqaale iyo ma taqaana ay amara siiyaan qoraalna u soo gudbiyaan marka al-imam al-allama Sheikh Salih Fawzan cilmigay ula tagayaan iyo dood cilmiyeed oo ay hayaan maxay tahay markay rabbi ka soo gudbeen oo ma taqaana quraanka sideedeen oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka soo gudbeen oo jibriil ka soo gudbeen oo ay ka soo gudbeen saxaabadii oo ay ka soo gudbeen maxaa ku raacay oo ay ka soo gudbeen Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ka soo gudbeen oo ardaygiisii ka soo gudbeen Ibn Qayyim al-Jawziyya ka soo gudbeen oo haddana Sheikh Maxamed Cabdi ka soo gudbeen ma haddana hadda yartaan
علماء ugu dambeysay oo saddex lahaa oo dhintay waxaad adigu 20 sano 30 sano intuu dhaxaysay oo Sheikh Albani ugu dhimasho waqtigii oo 9 sano dhintay Sheikh Ibn Bas taqriban mareysay Ibn Usaymin ugu dambeeyay maray saddex la sheekh oo ka soo farxisay hadda waxay waar ku hayaan oo maalka ay cambaarayaan oo ay wax ka sheegaan imaamkan al-Allama Sheikh Salih Fawzan cumrigiisa Allah noo dheereeyo caafimaadkiisana Allah taam ka dhigo marka nimankan waa cadowga islaamka way yaan la yaryaraysan Soomaaliyeed oo yaan la dayalsan way wiilashan ay ku shaqaysanayaan oo kooxda al-Ragaan uga baxay oo kanal saligoodu yahay intaysan carruurta yararka aysan macnaha aysan naga duufsanin oo aysan nagala tegin ciidada loo siiyo haddii ay ka xishoon waayeen nimankan carabta ah oo professorate hore sheeganaya oo tiisa uu la wareegaya ninkan la Yaxya Abu Zakari oo uu shiicay anaga noo wareysanaya maxaan ku raacdaa kuwo sunni ah oo sunan nabi waxba ka aqoonin quraan hadda sunan nabi hadda ashar oo kale maxay bartaan culimadu waxay yiraahdeen ashar waxa lagu bartaa luqada carabiga waxa lagu bartaa fiqiga waxa lagu bartaa tafsiirka intaas oo ka mara sunnada nabi waxa la waxay taraysaa marka sababtoo aayada quraanka hadaadan sidii nabigu u tafsiray iyo xadiis ku tafsiray hadaadan aqoonin waa hawada wax ku tafsirta haddaad aayad hawada ku tafsirtay iyo marka aad wax ku xukunto xadiis daciif ah ama mataqaana shaad ah ama munkar ah ama mawduuc ah ama daciif ah aad ku tafsirto aayad quraan ama si aad wax ku xukunto oo mataqaana mas'alad kala saarto waxa weeye aakhiri adduunka waa halaagsamaysaa jaahil badnata diin waxba kama taqaan marka nimankaanu ashar la yiraahdo aad baan u dhageystaa warkooda sunnada waxba kama yaqaanaan ayaan dhaweyd waxaa dooday mid sheekh oo yiraahdo anigu ma taqaan sheekha ashar baan ahay mise uu ahaan jiray ilaa 5 jago sheegtay mise 4 jago buu sheegtay oo qataro waaweyn xadiis buu ku galgashay marka waxba soo ka aqoon xadiiska waxa uu saxay imaam Abu Ishaq الحويني أو إلى تضباط يشنتي إلى أنتو كنتي أرضي شيخ البانيها شيخ خاص أنت كذب قاتي أيو إلا صحابي كوري نبي حديثك أيو كاني أو شرحي وهذا بدأ يوتو كله فتان والهليسان حوي مركا نمان كان أسر جوغا سنوني بحوة كما يقانا waxay kaloo ku darsadeen nacayb iyo dagaal ay qabaan oo u qabaan maxaan ku raahdaa Sheikh Fawzan Sheikh Salih Fawzan iyo culimada hadda aan tirinahay Ibn Bas iyo mataqaana Ibn Usaymin iyo Sheikh Albani culimadaas ay u yaqaanaan salafiyo ula baxaan u yaqaanaan una yaqaanaan wahabiyo dagaalkooda ku weynaaday marka qoladan ashar joogta jamaacadan ashar oo masaarida marka maxaana la isku haystaa waxa la isku haystaa sunnadii nabiga iyo si saxaabada diinta u soo wariyeen qaata iyo qaadan mayno wada sacuudiga iyo maxaan ku raahdaa xijaas oo dhan diintii rasmiga ahayd oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo saxaabada baray saxaabada soo gudbiyeen adduunyada meesha ugu badan oo hadda laga haysto si loo macnaha shacabka iyo mataqaana culimadu u fuliyaan waa sacuudiga iyo xijaas carabta degan way waxa weeye marka inaad sunno nabi la dirto oo nibcaato oo qofkii sunnadaas nabiga ku taagan oo cadawaaga noqdo oo aad soo raacdo mataqaan khadiyaaniyiin iyo shiica iyo aad soo raacdo khawaarij iyo niman la yiraahdo maxaan ku raahdaa mu'tazile iyo jahmiye iyo maxaan ku raahdaa ashcariye iyo qoladan la yiraahdo
raafido iyo aada soo raacdo qiimo kuu kordhayo male, qiimo kaasii dhaca maahane, dembi unbaad urursanaysaa aakhiriya adduunna. marka maaturidiye iyo ashcariyo iyo shiica iyo mataqaanaa khawaarij iyo muctasila aakhiriya adduun midna khayr ma leh. wax sunnabi iyo mataqaanaa ay xadiis ka yaqaanaana ma leh. meel cidlah baa 20 ciido kaga baabi'een. marka banaanka ha laga maro, qoladaas banaanka ha laga maro. qofkii raba inuu jaamacad aado maka iyo madiina ha aado iyo mataqaanaa dhulkaas xijaas ha u diin doonto, diinta saxiixayd halkaasay taallaa. qoladan mataqaanaa hawadooda iyo shaydaankooda iyo beentooda iyo mataqaan khuraafaadka la wareegay diin gacan ugu jirta male. marka caawa halkaasay noo joogaysaa. nimankaas ha la yska ilaaliyo. cadow weyn oo soo biiray oo raba inay ilaa Soomaaliya noogu yimaadaan wey. marka TV-ga ula wareegayo Dr. Yaxya Zakariya inuu Lubnaan yahay baan u malayn. dabcan shiicadan Lubnaan joogto inuu yahay saasaan 100% ku qiyaasaya. ha wareego kabuha ka dhamaadeen laakiin meel wax geenaya male. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. هذه أدبا أمها سنتهم.